daawada haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u hesho xogaha aan halkan kugu soo gudbinayo macluumaadkanna wuxuu ku saabsan yahay wararkii ugu dambeeyay caabuqa coronavirus ee dunida saameynta ugu ba'an ku yeeshay madaxa qaramada midooba Antonio Guterres ayaa codsaday lacag gaaraysa 2 bilyan oo gargaar bini'aadanimo oo caalami ah si loogu caawiyo wadamada faqiirka ah in ay wax ka qabtaan cudurka coronavirus iyadoo oo tirada dadka ku dhintay Talyaaniga iyo Spain ay sii kordhayso. Antonio waxa uu sheegay in COVID-19 uu khatar ku yahay aadanaha oo dhami waxaana ku baaqay in lala dagaalamo. Markii ay qaramada midooba bilowday dadaalada dhimashada dad badan ayaa laga soo sheegay Yurub oo hadda ah xudunta ugu weyn ee cudurkan iyadoo Spain ay diiwaan gelisay in ka badan 700 oo dhimasho ah 24 saac gudahooda. Hadda waa dalka Spain waa dalka labaad ee dhibaatada ugu badan uu gaarsiiyay COVID-19 marka laga soo tago dalka Talyaaniga Yurub dhexdeeda. dalka Mareykanka 2 trilyan oo dollar oo loogu talagalay shaqaalaha gargaarka ganacsiyada iyo nidaamka daryeelka caafimaadka ayaa loo gudbiyay aqalka sanadka si loo saxiixo. dawladaha caalamka ayaa dadaal ku bixinaya ka hortagga xanuunka COVID-19. hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan qaramada midoobe ee magaceeda loo soo yareeyo WHO ayaa dhankeeda sheegtay baahida loo qabo in cudurkan baaritaankiisa iyo waliba karantiilkiisa dadka uu haleelo la sii xoojiyo. dalka Mareykanka waxaa iminka la xaqiijiyay guud ahaan dalkaasi in ay ka badan tahay 60,000 oo kiis isla markaana kala bar kiisaskaasi waxaa laga helay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Spain waxaa laga diiwaan geliyay isla markaana ay tirada dhimashada ka sara martay tiradii Shiinaha uga dhimatay caabuqa coronavirus. xukuumadda Madrid ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay marayso in ka badan 3,400 oo qof. dawladda Finland ayaa xanibaad ku soo rogtay gobol ka tirsan gobolada ugu badan ee dadka laga soo warinayo caabuqa coronavirus uu soo ritay ay ku nool yihiin. dalka Kenya ayaa dawladdu ay soo rogtay bandow la saarayo dalkaasi si looga hortago caabuqan. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay bandow xilliyada habeenkii ah oo ka bilaabanaya 7 fiidnimo ilaa 5 aroornimo. bandowga ayaa dhaqangelaya Jimcaha ina soo haysa waxayna tahay mid lagu doonayo in looga hortago faafitaanka caabuqa coronavirus. madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in bandowgan uu saameynayo dhammaan gobolada dalka Kenya si loola dagaalamo fiditaanka cudurka coronavirus. sidoo kale madaxweynaha Kenya Kenyatta ayaa ku dhawaaqay in la dhimayo mushaarka shaqaalaha dawladda. warkan oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru ayaa ku soo beegmaya xilli tirada dadka cudurka coronavirus helay ee dalka Kenya ay gaartay ilaa 28 ruux. hase yeeshee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku sheegay in mid ka mid ah dadkii bukaanada ee laga helay cudurka COVID-19 ee dalka Kenya uu ka bogsooday. sidoo kale dawladda Ruushka ayaa dadkeeda ku xanibtay guryaha kadib markii ay magaalada ku soo fasaxday boqolaal shabeello iyo libaaxyo isugu jiraan kuwaasi oo ah dad cun waxayna keentay cabsi ah in dadku ay guryahooda ku nagaadaan. dawladda ayaa arintani uga gol leh in uusan faafin caabuqa coronavirus dadkuna aysan dareemin in dawladda ay caburinayso haddii ay yiraahdaan guryihiina ku jira oo ha soo bixina. wadamo badan oo caalamka dhaca Afrikana ay qayb ka tahay ayaa la tacaalaya sidii caabuqa coronavirus ay kaga hortagi lahaayeen in uu fido. Soomaaliya oo kamid ah dalalka dhaca geeska Afrika darisna la ah Itoobiya iyo Kenya oo laga soo sheegay caabuqa coronavirus ayaa dadaalkii ugu dambeeyay gelisay in ay ka hortagaan faafitaanka caabuqa coronavirus xilli wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ay diiwaan gelisay hal case oo ku saabsan caabuqa coronavirus kaas oo laga helay qof ka yimid dhulweynaha China. isla China ayaa dawladda Soomaaliya ugu deeqday qalab ay uga hortagayso caabuqa coronavirus waxaana shacabka loogu baaqay in ay feejignaadaan ilaaliyaanna waxyaabaha keeni kara in uu faafo caabuqan.
ugu dambeyntiina dowladda Shiinaha ayaa ahayd dowladdii ka soo bilowday caabuqa coronavirus balse dadaal badan oo ay sameysay inkastoo dad badani ay uga dhinteen ay haatan ka sii yaraanayso halistiisa guud ahaan waa inaga intaas warbixintii ku saabsanayd wararkii ugu dambeeyay ee caabuqa coronavirus fadlan haddii aad ka heshay warbixintan amaba aad ku cusub tahay channelkan subscribe noo saar gambaleelkana furo